لايف waxaan ugu jirnaa Horyal 24 TV in garabka waxa taagan maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan in ciid maar ku soo dhawaayo ciid mubaarak marka ugu horeysa waxaan ciid mubaarak ku leeyahay dhamaan ummadda reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa alxamdulillah waxaynu ku ciideynaa nabad xalay waxaynu ugu diyaar garownay nabad waxaan rajaynayaa caruurta iyo guud ahaan dadka reer Hargeysaba inay nabad qab barwaaqo iyo badhaadhe ku ciidaan farxad ku ciidaan ilaahayna waxaan ka barayaa in ummadda reer Hargeysa maalintan farxadda ah ee ciidda ah inay iscaawiso oo kuwada saboolka ay wax taraan kuwada wax qalayna ay markaa gaarsiiyaan wixii ay qasheen inta maaragtay jaarkooda kuweena waxay hayntooda sareysana inay la doontaan kuwa saboolka ah ee maanta waxba hayn waxaynu u baahannahay in wada faraxsanaano saynu u wada farxno maalintan farxadda ah ee ciidda ah ee barakaysan waxaan ka codsanayaa dadka reer Hargeysa in qof waliba qof kala gaadho maanta oo kii jeebka wax ku haya oo kuwa saboolka wax taro oo kii wax qashay ama wax karsaday oo kuwa saboolka cuntada la wadaago albaabada aynu furno albaabadeena furnaadaan oo marka maanta qadada la gaadho guri walba qofka hormaraya ee waxba haysan oo ku soo baydhi karo oo wax la cuno markaynu markaas sidaa isu taageersano isu gacan qabsano ayaa insha Allah taala farxadu inoo dhameystirmaysaa magaalada barakaysan ee Hargeysa cimiladu maanta way inoo fiican tahay cimilo wanaagsan oo qabow oo rooban weeye farxadda inoo dhameystirmaysaa marka jeebka iyo gacanta iyo qalbiga iyo farxadda inta inaynu isla gaadhno ayaynu doonaynaa midkeenba midka kale markuu wadada marayo inuu waji wanaagsan tuso inuu farxad tuso maanta qof cadhaysan inuu joogo Hargeysa maaha riini rihirdida maaha waa maalinta khayrka leh ee wanaagsan intaasaan farayaa ciid mubaarak baan ku wada leeyahay dhammaan dadka reer Hargeysa